kulanti wanaagsan wacan akhyaarey idlahaantiinba waa akhbaarta TV oo alaaba idinla socodsiiya wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo waliba bariga Afrika. Wararka maanta waxaan ku qaadaa dhigaynaa wararka sheegaya dhimashada tirada caanka ah ee u dhalatay wadankaasi Hindiya, Miss Kajol Devgan. Haddaba akhyaarey intaanan u guda galin warkeena waxaan idinka codsanaynaa inaad noo subscribe gareysaan channelkeena akhbaarta TV, like-na noo saartaan. Maalmihii u dambeeyay waxaa aad loogu baahiyay baraha bulshada, khaasatan aaladda YouTube-ka, dhimashada Kajol, balse xaqiiqda midaas waa ka duwan tahay. Haddaba ma runba inay Kajol dhimatay, balse jawaabta waxaa weeye maya, ma dhiman ee waa ay caafimaad qabtaa. weliba waa ay caafimaad qabtaa saacadihii u dambeeyay. Wararka waxay ay sheegayaan inay saacadihii u dambeysay u hambalyeysay islaanta sodohda u ahaa ee dhashay Ajay Devgan, oo weliba barteeda Twitter-ka waxa ay ku qortay iyadoo kaftamaysa aniga ma guursanin Ajay Devgan ee waxaan guursaday sodohday. Sidaas oo macnaheedu ay tahay xidhiidhka wanaagsan ee ka dhaxeeya Kajol iyo islaanta sodohdeeda, iyadoo marar badan ku tilmaantay in gurigeedu intaas dhisnaado inay ka dambeysay islaanta sodohdeeda. Haddaba maxaa sabab u ah in intaasoo website oo weliba caanka wadankaasi ay ku baahiyaan baraha bulshada dhimashada Kajol Devgan? Sababta waxaa weeyaan horaantii bishan waxaa ku dhacay Kajol Devgan cudurka COVID-19, balse waa ay kasoo kabatay iyadoo weliba Twitter-keeda ku qortay in karantiin la geliyay oo weliba loo diiday inay la kulanto saygeeda iyo weliba gabadheeda ay aadka u jeceshahay. Haddaba wararkan la isla dhex marayo ee la sheegayo inay Kajol dhimatay waa waxba kama jiraan, iyadoo weliba saacadihii u dambeysay waqti la qaadatay oo u hambalyeysay islaanta sodohda u ah. Kajol Devgan ayaa ahaa aktarada aadka looga xiiseeyo wadankaas Hindiya, iyadoo weliba mar ku guuleysatay aktaradii ugu fiicnayd ee sanadkaasi. dhageystayaal inta waxaan kusoo koobaynaa wararkii ku turkuteenta ahaa ee laga baafiyay dhimashada Kajol. Waxaan idinka codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay channelkeena inaad na soo raacdo fadlan. Sidaas iyo amaana Allah.